xildhibaan Cabdullaahi Saraaf oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood oo maanta la hadlayay qaar kamid ah warbaahinta ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay kamid yihiin khilaaf uu sheegay inuu soo kala dhaxgalay golaha deegaanka degmada Laascaanood. xildhibaanka ayaa sidoo kale ka warbixiyay lacag malaayiin gaaraya kuwaas oo uu sheegay in aysan jirin meel ilaa hadda ay raad dhigeen. xildhibaanka waxa uu kale ka dhawaajiyay in magaalada ay yaalin qashin ah oo tiro badan ayna soo dhow yihiin xilli roobaadkii. waxaanu sheegay in dowladda hoose ee degmada Laascaanood aysan u sameyn qorshe lagu qaadayo qashikaasi. waxaan xildhibaan golaha deegaanka oo ka hadlaya dowladda hoose iyo degmada Laascaanood waxyaalaha dhaliisha iyo dhibaatada haysata oo ay u horeeyaan arrimaha dhulku wuxuu gaaray heer aan la gaari karin oo xalal laga qaban karin haday wadooyin tahay haday tahay daafaha dhulka ay daaqayaan xoolo daaqeenka ay tahay haday tahay dad maqan oo dadkiisii iyo dhulkoodii boob iyo lagu hayo adaalada leeyahay wax fool xun in badan baanu ka hadalnay waxba waa la maqli laayahay. waxaa kaloo jirta maxkamadda soo faragelisay iminka dowladda iyo dowladda hoose maxkamaddii baa isku xirmay oo doonaya oo noo soo farageliso dowladda hoose ku xirantay. taasi waa qodobka waa xagga dhulka. xagga kale waxaan ka hadlayaa waxaa jirtay madaxtooyada dowladda Soomaaliland lacag 300 milyan anigeegan iyo wafti yar oo la socday oo kale oo maalin hore ah inay noo saxaxeen oo lagu soo gudbiyo bangiga lacagtaasina meel ay ku dambeysay iyo qorshe ay leedahay beriga aan wada furka ku jiray oo aan wadada furaynay yaa dowladdu noogu taageertay in lacagtaas meel ay ka baxday ilaa al'aanada gacan kuma hayn. taas waa qodob kale jira waan dadweynaha u sheegaya. waxaa jirtay lacag maalin hore xildhibaan ka hadlay oo dadweynaha laga ururiyay oo dadweynaha liyo waxa la idinku qabanaya 3 bilood soconaysa 2 bilood markaan waan inay 2 bilood ahayd baan dadka laga ururiyay dadweynahina waa ka aamusan yahay. waxbarashooyinka laga qaaday dugsiyada laga qaaday ganacsatada mid hoose iyo mid saraba waa laga qaaday lacagtaana halkeedii wali ma hayno iyo meel ku dambeysay. taasna waan sheegayaa dadweynuhuna waxaan sheegayaa wixii dulmiya iyo wixii lagu hayo inay hariyo jaraale ka hadlaan oo annaga waanu isceed reebaynaa. annaga waxa laga yaabaa in lagu saxo qoliyaha iyo deegaanka golaha xildhibaanada haddaan ilaa xildhibaanada adeelamkeeda arrinta lagala xiriiro waa loo filo laakiin annaga hanoo filina nin walba sumadu meesha ku taala uu garanayaa. xildhibaan waxaad moodaa muddooyinka ugu dambeysay in khilaaf uu soo kala dhaxgalay xildhibaanada golaha deegaanka iyo mas'uuliyiinta kuwaas oo aad moodid inuu kala jabeen laba garab oo kala taageersan xogayaha iyo maayarka. arrintaada maxaad noogu sheegi kartaa? arrinta waxaan ka sheegi karaa meel haddii khilaaf yimaado horumarna ma jirayo wax dhaqaaqayaan ma jirayaan. khilaafkaasi annaga xitaa qoladii deegaanku waxaa laga yaabaa inaan daliil ku leenahay. daliisha aanu ku leenahayna waxaa weeye annagu waxaanu iska leenahay baa jirta inaanu kala raacno maayo waa inaanu dadweynaha wax ku qabanaa waanu halkaas aanu annagu ku qaban. Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Laascaanood.